السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada barnaamijkeenii maxay kula tahay. waxaad arkaysaa nin weyn oo aabihii muddo saacad ama nus saac la fadhiya oo inta uu la fadhiyo uga sheekeynaya wax qalbigiisa dhaawaca ama niyad jabiya ama xasuuso xumo wada murugaha aabihii xasuusinaya oo hadhowtana qalbigiisa ka dhaawacaya iyagoo waalidkiisu aan waxba u qaban karin oo duruufta aan waxba ka bedeli karin daraadda da'dooda weyn ama awood la'aan haysa ama duruuf haysa. dadku markaad la fadhidid waxay jecel yihiin inay ku farxaan hadalkaaga oo marna ay ku qoslaan oo ay ilaawaan dhibaatada noloshooda iyo caqabadaha noloshooda ka haysata. dadku waxay jecel yihiin markaad la fadhidid inay wanaag fara badan ay ka arkaan oo ay arkaan quruxda nolosha ay ku arkaan hadalkaaga iyo wanaagaaga oo marna xikmad ay ka faa'iidaan marna ay talo ka faa'iidaan. laakiin dadku ma jecla qofka cabashada badan ee murugada iyo duruufta wajigiisa markasta ay ka muuqato. nin la yidhaaho Ibraahim bin Isxaaq waxa weeyaan caalim weyn oo lagu qiyaasayo cilmigiisa iyo diintiisa Axmed bin Xambal. Ibraahim bin Isxaaq mar wuxuu yidhi hadal lagu miisaamayo culayskiisa buuraha. wuxuu yidhi weligay uma ashtakoonin hooyaday ama walaashay ama xaaskayga ama inantayda xumad igu dhacday. waa maxay sababta dhibaatada ay haysatay xanuunka ay haysta haddaan anigu aan buko inaan dadka kale ugu gudbiyo baxan u dhaawacaya ama maalintooda uga xumaynaya. wuxuu yidhi ninka dhabta waxa weeyaan ka dhibaatadiisa haysatay xanuunkiisu isaga ku koobnaato oo aana u gudbin caruurtiisa iyo xaafadiisa. Ibraahim bin Isxaaq wuxuu aaminsanaa haddaan anigu aan damqanayo yaanan dadka u gudbinin damqashadayda iyo xanuunkayga. dadku ha ku farxaan wanaagayga iyo quruxdayda ha ku farxaan iyo hadalkayga dabacsan. ninkaas wuxuu gaadhay heer aad u cajiib ayuu samarka ka gaadhay. wuxuu yidhi waxa ay hayay dhanjaf muddad 45 sannadood weligeena cid uman sheegin oo cidina ma oga dhibaatadaas inay haysato. qofka aana garanayn dhanjafka ama madax xanuunkaas ha ka waraysto qof dhanjaf uu hayo. qof uu dhanjaf u hayo oo maalintaas shaqo tegi karin daraadda dhanjafka haya oo meel madow maalintii oo dhan fadhiya oo ku nool kiniinka xumo jabinta ama kaar jabinta ha ka waraysto xanuunkaas. waxaanuu idhi 20 sannadood ayn il qura wax ku arkayay oo xataa xaaskaygu aanay ogeyn dhibaatadaas inay haysato ama il qurana wax ku arko. qurux badanaa inaad dareentid mar kasta inay dadku haystaan wax ku filan oo xanuun ah ama dhibaato ah ama duruuf oo aanay u baahnayn qof u imaada oo xanuunkoodaas xanuunku kordhiya. waalidkaagu markasta waxay jecel yihiin farxad iyo wanaag wejigaaga inay ka arkaan. ma jecla duruuf ama xanuun inay wejigaaga ka arkaan. faylalkaaga madow ama mugdiga noloshaada ka jira iyo xanuunka noloshaada ka jira ku hay khasnada noloshaada oo ha u soo gudbinin khasnadaha dadka kale. sababtu waxa weeyaan already khasnadahoodu way buuxdaa oo xanuun ku filan baa ku jira. maxay idinkana idinla tahay dhaqankaas. waa mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.